السلام عليكم ها الدنيا ذا ياب يال بل كان فيري وكادي مركا فهنا وبهانتا شاكد إنا أوغاتي نينكن waxaa garaacaya ilaa iyo qiyaastii 6 dumar ah midiiba waxay wadataa midi inta la eg budad baangado alwaax wax aysan wadanin malaha maxaa dhacay marka waxaa dhacay ninkan in uu guri kamida guriga gabdhahan ay joogan oo shukaansi u aaday 6 dumar ah kasoo kor degtay ninkii marka xaalkii uu socday xaal ka duwan dhaxda ku galay niinayd shotada kubadda dadka daawada yaqaan ayaa lagu hareeriyay duqa dhaxdu taagan yahay dhaxda la gashtay mid inta uga dhufanay mid inta ninka waxa gaaray dhaawacyo aan caadi ahayn madax halkan waa qaraxsan yahay faruurta waa qaraxday garabka dhaawac kale ka gaaray oo midida loogu muday waa dhiiga ninka meeshan sunnayaha hoostiis waxa uga yaala erayo uu ku dhawaaqayna calool xanuun ayay leeyihiin wuxuu leeyahay madi ayaa aan naftahay dhaafinina ayaguna wuxuu leeyahay maxaa naga ka galay madi hadaa tahay maxaa gabadhan ku daba dhigay ay leeyahay marka asaguna wuxuu leeyahay qalad waa dhacaaye ya qalad waa dhacaaye walaalayaal iska keedaaya ilma adeerana uu leeyahay waliba laakiin dumar ninkii u jaba maba ka saayaanba ka qalay على أي حال شاكد قنتي دي أن قد قلنا هوستا ودقيناي بل أموقالك إسلا داونا مركة هرسي لحدا دمر ببحث دواي إن أنت لو وصل لغا رجينا نلقود بموقالك هكتغين هكو فرحين قبر هداتها قردرادة دمر كأي جيستين نين رايا هداتها هين هكو دقين نين كان فرينت نلقود بي أن داونا موقالك أي موقالك وأسكاس أوجدين وحليين هذا ما حكربته قبل هذا ما ده طبعا ضيق إسقالين حالة تاجر مرك لكن سيد أقول لك من سقاد دروا هاي هذا وأسكا قبنا مرك أيضا حليين قبل أنا كافة كويس ninkan dhaawacyada qofeed ee la gaarsiiyay qaarkood inta waa ka qaranay waxa ka soo arkartaa telegramka asagoo faashada la saaray funaanadiisii dhiiga ahayd wata wajigiisii clear ah macluumaadka oo dhameystiran telegramka ayaan soo gelin laakiin dhibaatooyinkan ragga ku dhacay waa soo bateen doolka ragga shugaansiga aada iyaga oo waliba aan is ogeyn in dakano ku jiraan ama gabar weeraan ay u gaatamayso qatar weyn oo keenay falkan hadda wuxuu ka dhacay Garbahaari laamaha amniga ilaa hadda cid ay soo qabatay malaha waa lagu raad joogaa laakiin ninka dhalinyarada dhaawac waxyaalo aad u daran gaartay waxa intaas u dheer sumcadiisa cadaaladuna u baahan yahay in loo hiiliyo u baahan yahay hadda ragow xeeladaysiga hala badiyo 6 dumar haday dhaxda ku gashtaan ina cala cashid mooyee hal kale ma leed haddaba waxa aragteen ninka dhalinyarada ah ee dhibaatadaas ku dhacay waxaan isku daynay inaan helno oo aan ogaano bal gunta ama barta rasmiga ah ee sheekadan ka bilaabatay xaqiiqadeeda waa kan ninka hadda aad aragtay muuqaalkiisii ee dhibaatooyinka ay u geysanayeen dumar shufta ah oo hubeysnaa oo aan waxba ka aqoonin xeerka ragga lagula dhaqmo sidoo kale tan hab dhaqankooda uu ahaa mid hareer marsan sharciga oo ay tahay in gacan bira lagu qabto ninkaas dhalinyarada ah aad aragteen ee la garaacay ee midiyaha iyo budadka iyo baangadaha la dhacay dhaawaca wali waa ka muuqda faruurtiisa wax yar haddaan noo soo dhawaato si dadka u xaqiiqsadaan in adiga tahay dabcan waa kaasa nabarka aad u maasan tahay كيرا فوق مركا محمد داهر عبدي نينكا dhibaatada uu ku dhacay waa muuqaalkiisina uu baraha bulshada aad u soo galay maxamed maxaa keenay dumarka in sidaan ay ku galaan bal sharaxaad naga sii saaxiib ma saro gabar baa xiriir naga dhaxeeyay marka anta ka horna wax badan baan u tagay oo koow ma ahan laba ma ahan marka gabaraan ku kalsoonay ahayd marka haddana safar baan ku maqnaa markaan magaalada kusoo laabtay bay jireen inaan sarnaa rabaa muddo bilaan kala maqneen marka haddii kama fulinaynin
marka waxay ii diyaarisay hub bay ii diyaarisay iyo gabdho iyo hubeysan iyo ciidan bay ii diyaarisay. marka markay guriga aan soo galay ayay waxaa la dhihi jirtay waxaa guriga igu soo galay naago hubeysan oo tooreeyo iyo budud wato. markii lagu bilaabay haddana markaan afka iga yaallo bud waaye mid kale meeshaan iga yaalaa. marka saasay wax ii gaareen. madaxana dhinacana waa kuu duubnaa si aan arkay sawirka aan hadda arkay oo aan rabo inaan telegram dad kula wadaagno. juga kaa gaartay miyaa isagan daqar? haa daqar waxaa waaye bud bay igu dhacay. marka bud bay igu dhacay. imise gabdhoodii ahaayeen aad tiradooda ma la arkaynin muuqaalka? imise gabar ay ahaayeen dadka sidaa kuu garaacayay ee midiyaha iyo bududka wati? 4 gabdhood bay ahaayeen. marka inkastoo waxba 4 horta waan hubaa, laakiin tooshash baa indhaha liiga hayay. rag codkoodana waa maqlayay oo aanan garanaynin. marka si xun baa lii garaacay. dumarka ragaa wehliyey miya? rag baa codkooda maqlayay, laakiin waxay dileen naagay u badnaayeen. waa gartay. marka gabadhan adiga aad xiriirka laheedeen, macnihii xiriir dad sheekaysta oo isfahansan dabcan ayaa xiriir yeesha. maxaa keenay marka inay hadda ay kuu qooshto dhagartan oo dumar ay kuugu diyaariso guriga, sidoo kaletana codod ragaa maqlaysay oo ma ka fogeen meesha ragna joogaan, dhibaatadaas lagu gaarsiiyo? maxaa keeni karay? waxaa keeni kara gabadha horta aniga iyada xiriir baa naga dhexeeyey. gabadhaan ku kalsoonay ahayd. marka gabar kale oo ayada ay saaxiibo yihiin oo aniga hadda ka hor aan isku yara dhacnay oo aan isla khilaafnay bay kolley u helisay. dad waa kala tagaan, dadka waan isbartaan, hadday iskhilaafaan way kala tagaan. marka gabadhaas ayay la safatay oo saaxiibteed ah. marka naagay isoo wateen, saas baa waxay u gaareen. waa gartay. muuqaalka waxaa laga dhex maqlaa cod muujinaya in gabdhaha ay ka cabanayaan oo ay leeyihiin gabar hodan ayaa la yiraahdaa, dabcan siday magaca u sheegayaan ayaa ma iska dhaaftid, maxay tahay warkeeda inaad meelaha ka sheegtid, maxaa kugu kalifaya ayay codka ka dhex leeyihiin? ma waxaa jirtay war adi dhankaaga ka baxay oo gabadha iyo ehelkeeda ama gabdhahaas ay dhibsadeen oo sabab u noqon karay in adiga dhibaatadan lagu gaarsiiyo? maya, gabadha hodanta waa gabadha hadda aan sheekeysana inay wax isku yihiin baan filayaa. marka ayada ayaa isoo waxaa dhibka ii geystay. waxa dhib kuu geystay marka gabadhaas wax daba socday miya oo hadal inaa iyada ka sheegtay oo kale ah? maya, waxba kama sheegin. gabadhaas gabadha ayada kor aan iska naqaano unbay ahayd. marka gabadha xiriirka laheedeena marka ay codka ka dhex ma laga sheegayo magaceeda? gabadha magaceeda video laga dhex sheegayo oo la dhahayo gabadha hodan la yiraahdo, maxaa warkeeda ma dhigaysaa ma joojinaysaa ay leeyihiin gabdhaha, oo aniga laakiin markaan qiimeeyey aan u fahmay inay rabaan inay dhibaatada ay geysanayaan ku daboolaan. ma gabar adiga xiriirka laheedeena? gabadha xiriirka laheedeen ma hodanaa la yiraahdaa? maya, aniga gabadha xiriirka laheedeen producer la dhahaa. gabadhan kale hodan la dhahayna waa walaasheed. marka gabadha xiriirka leedihiin marka ma kamid tahayd gabdhahan ku garaacaya ee ku dhibaateynaya meesha jooga? gabadha markaan cabaar markaan yara sheekeysanay ayaa ay weji ii bedelatay oo ayadana markii haddii gabdhaha kale ay soo galeen oo tareega la saaray iyo tooreyda ayaa ayadana haddii meesha soo gashay. qofka midii wata markida midi waa hodan, waa midi wata hodanta. waa gartay. walaalkii horta aada uga xumaa dhibka kuu gaaray, soomaalida dhan aaday uga xun tahay. dadkan ma la qabtay dhibaatadan kuu gaarsiiyey hadda? maya, maasaro maya, waa lama qaban. laamaha amnigana kolley way ka warqabaan, laakiin ilaa hadda wax dhibaatadeeda waxyaga qabtay ma arkin. marka meeshaan joogana waa garbaare waaye, waa iska tuula waaye. dad badanaa muuqaalkii baraha bulshada gelinaya oo ka dhigaya wax macnihii maad camal oo kale ah, ama aan adigana qof dhib ku dhacaa tahay, oo runtii aan aad uga damqanayo oo la handaday oo midi lagu hayay. maxay tahay fariinta aad gaarsiin karto dadkaas oo aad ugu sheegaysid?
wallaahi waxaan dhihi lahaa laamaha amniga inay wax ka qabtaan oo dadka waxaa suubinaya intay wiilasha ballameeyaan haddana shirqoolaya. waxaan jeclaan lahaa in laamaha amniga si degdeg wax uga qabtaan. anigana hadda dhibka i gaaray waa cadyahay oo waa kan iga muuqdo in wax liiga qabto haddii wax liiga qaban karo. marka kolley rag iyo naago waa i heleen oo meesha waa lagu dilay. marka waxaan rabi lahaa in wax liiga qabto. waa garta aad iyo aad u mahadsan tahay maxamed daahir cabdi. waxaana ka xunnahay dulanka kugu dhacay. waqtiga aadna siisanay saaxiib aad ugu mahadsan tahay. mahadsanid badan mahadsanid.